أنا مقعد واحد يرادا ده فارح عروني على ده جواد لمتن واحد يرادا حمدي محمد فارح عروني على ده إن وحن وهيدا أبيه لو توقع أبيه هو هاي عدال درب لنا طبعا هنا إنك جواد أنا دبقي سيد صاد عدي أنتوا يردوا أي كم صادين ليك كلامي ساعة فيها يا ورسينا ورئيس رسينا أنا ويرادو ما عد جواد هنا دبقي كذا على ما عدو دبقي نبيجي ونحياله تاس حرام عليك ولا يسكرب ما قابل كرنا تاس ما قابل كرنا وابنا بحنا من جودنا هنا وواتن صدن أفرت بروحي أنا وخات برام بحنا وصعنا ما يستاهلين وصعنا ومدارنا وحي محمد وجدنا ولا بحنا حق عدالنا يا حمدي ولد المي حمدي عدالة ربطة ودعنا عادي وحنون بدن وايا وإلا حال إلا شلم حياة كدن قنيني وحن أباهنا هاي إن حياة بنا بحنا دقمة كستو إلا تغو لبنا بحو عدالة المرسيو أيان أباهنا هاي وكحولنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم وكحولنا هاي أرنتا شلي دعدي قبرداس ولا شينا وأنا من نصيب دراسة مالي هاي سطا من عرف إلا عرف dhaqan kana waxaan isleeyahay farxada la saaf shar laga wada dhaqameedada ayaa dhaqan kan naaxinayo meel kasta ninkii naaqubsada wada dhaqameed wadada ka gelaya reer hebel buu noqonaya dambiiluhu reer hebel noqon maayo in hebel noqon maayo sharafna yeelan maayo taasi waxa weeyaan waxa xagga wada dhaqameedka sharci adagna hal laga yeesho Soomaaliya dhaqanka la joojiyo arinta xagga kale gabdhahana waxaan kula dardaarmaya war gabdho guriyaha la idigu kubsanayo haadina waxa la igu yiri gabadhayda guriga tagtay war gabadho guriga haadina meelaha rag waa iyaga ida raba meesha joogtaan iyo hooyigiina ninka idlaha saawayeen raba ma garanaysa guri diga rabaay gurigiina haydigu yimaado laakiin idigu aadina intaas waa tala aan gabdhaha siinayo magacay waa guuleed waxaan ka tacsiyanayaa marka hore geerida wuxushnimada falkii argagaxa lahaa oo ka dhacay maalinnimadii shalay magaalada Muqdisho xamdi Allah u naxariisto waxaan uga tacsiyanayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyootay waxaan muujinaynaa dareenkeena maanta waxaan isku soo baxnay wadada Makka al-Mukarrama xilli ummadda Soomaaliyeed baraha bulshada si aad ay uga falceliyeen falka wuxushnimada ee argagaxnimada waan ka xumaa horta walaashay dhibka ku dhacay foosha xun ee u geystaan wuxuushta sideeda labaad waxaan ka xumahay in anaga dareenkeena inta muujino aan soo banaan baxno aan ka xumaano ee taliyaha hadan degmada hadan iyo saldhiga waabay ee labadaba intay la jir dilaan ee xabsiyana geeyaan ayna xiraan taasaan ka sii xumahay waxaan ka xumahay dal shisheeye ma joogo waxaan joogaa dalkayga hooyo in jarkayga laygu dilo oon ku banaan bixi waayo oo xurriyada aan ku maro oo laygu gumaado kii wax sameeyey faldambiyeedka geystana ee la soo daayo oo waxaan ka xumahay oo maanta aanan liqi karin saaka waxaa u soo baxay inay xamdi cadaalad hesho horta Allah u naxariisto qofkii dhinta uu u tagay waxaa u baahanahay xamdi dadkii loo soo xiray waa la deeyey waxaa deeyey ninkan magaciisa muxuu ahaa Cabdiraxmaan adeey wuxuu u deeyay waxaa la caado qaatay inuu yahay maanta haddii aan ninkaas arki lahaa horta marnaba dadka ma aysan cafiyeen haddii la arki lahaa xamdi waxaa u baahanahay in cadaaladda la hor keeno wixii falka ku sameeyey waxaan aad iyo aad ugu xumahay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu xun yihiin xamdi falxumada loo geystay wax laga argagaxo waaye wax muslimnimada ku fiican ma aha qof walba bini aadana damiirkiisa kii maqlaa aad buu ugu daqnanayaa waxaan farayaa marka laamaha ammaanka si aanan dib dambe ugu dhicin arrinkaas arrin la mid ah waa inay canaan kulul iyo baaris kulul iyo raggii falkaa ka dambeeyey soo qabtaan oo ay amniga hor istaajiyaan waxaan mar labaad ka digayaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay fal noocaas oo kale dib dambe u dhaqmaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aad ugu digayaa in la ilaaliyo muslimnimada waxaan aad ugu digayaa in sharafta bini'aadanimada gabdhaha Soomaaliyeed la ilaaliyo